sida caadiga aan ka dhigno 18 meesha aad ka tirteen guurka saxda waa 18 dhah afar nin oo geelay ah waligeed alif beeta looma dhigin iska daa caafimaad barteena markaas inta meel fariisanayeen dadka jireen hana loo keeno waa loo keenay kan madaxii aad u xanuunay qalliinay la fariisan birtay saareen wali halbowlahaas go malaha mid kaas halbowlahaas ayaa dhiig jireen ku jira kow naftiya ka dhacday markuu dhintay ay leeyihiin wax dhib weyn maahan waxa weyn qofkan hurdal aana ku dhacday malaha waa hurday xagga ii seex soo qabo midka kale war jeex balbeerka war xididkaas inta gooyda xididkan ku rakib malaha labada xidid isla shaqay weydii kow waa dhintay xagga seex dhib weyn ma maxaa la dhiila dadku haday arkaan war ha laga qabto dadkan umada halaagayso lama dhiheen diinka qofka inta wax aan diinta sal iyo raad ku lahayn sheega dhahaya dhib male sidaas waa ka daran oo diinko la baabaasho iyo dadka naftooda yaa qatarsan. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سؤال صلى الله بطي قانقار محل لجيده دينة إسلام كسي عرورتو مركة ورا صغير هذا هايين محيكو قانقاران جواب كوبان هدان كبحيو قانقار هورتا waxa loola jeedaa caruurkii awal aan mas'uul ka ahayn oo waajibaad ku saarnayn dambina aan malaa'iktu u qorayn wuxuu gaaray qaan macnaheedu waxay tahay waajibaadkii sharciga ahaa ku waajibo saaran salaada laga rabaa soona laga rabaa waajibaadkii laga rabaa xoolo haduu leeyahay saka laga rabaa waajibay ku tahay asaga laga rabaa oo lagu la xisaabtama hadduu waajibaadka dayaco ama muharramaadka ku dhacana malaa'iktu dambiyay u qorayaan waa qof mukallafa oo xil saaran yahay dambiya loo qoraa hadduu qof dilo waa loo dilayaa oo waa dambiile sidaas loola jeedaa qofkii waa qaan gaaray ma qaan gaarina waxa loola jeedaa salaad waajib kuma ahan soonna waajib kuma ahan haddii uu qof dilo looma dili karo waa saqiir hadduuba qalad sameeyo oo diinta waxaan ku banaanayn sameeyo dambi loo qori ma saasa loola jeedaa qaangaar weeye iyo qaangaar ma ahan maxaa lagu qaangaaraa waxa lagu qaangaaro ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa cadeeyeen qaybo badan oo kamid ah waxa ilaahay weynaa subxaanahu wa ta'ala suuratu nisaa ku yiri wabtalul yatama hatta idha balaqu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ilaahay weynaa subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay caruurtii agoonteeda saqiirada aha oo aad haydeen imtixaana markay qaangaarka ku soo dhow u yihiin hadday gaaraan nikah oo loola jeedo sidii mujaahid qeyrkiis bay ku fasireen alxuluma inay mani ka timaado ama soo jeed ama hurdo hadday gaaraan oo ahal ay u noqdaan nikah oo mani ay timaado markaas u dhiiba hantidoodii awal intuu saqiirka yahay ma banaan caruurta xoolahooda in loo dhiiba laakiin hadduu qaan gaaray xoolahoodii u dhiiba fadfaqu ilayhim amwaalahum laakiin shardi kale ilaahay ku xiray qaangaarka oo dad waxa jira qaangaaro waaweyn oo mas'uul ahayn xoolaha iska dayaca laakiin fayn aanastu minhum rushdan way haddaad ka dareentaan toosnaan diinta iyo maalkooda ay ilaasho karaan oo diintana ku toosan yihiin maalka ilaashigiisana ay ku toosan yihiin aayadaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay caruurku marka uu gaaro waqti maniyu ka timaado waa qaangaar sidoo kale suuratu nuur ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa ta'ala wa idha balaqa al-atfalu minkum al-huluma falyastadinu kama istadana alladhina min qablihim إلى سبحانه وتعالى وحيري عرورتي أول صقير هذا هايين هدي جاران وقت منيدو أي كإيمانيدي وعمل سوتشيد أما هردميد دون تاوغاتي ما الضو وإني جوري مركي سوغليان حتى أبود يهودو داي كوتشيران وإني إذن طلبادان سيدي دادكي وويناي هوري سورة أول كذا اللوغو صوشيغي أي إذن دلبانيين nabigeena suubana sallallahu alayhi wasallam wuu cadeeyay qofka marka ay ku bilaabanaydo dambiyo galay waa loo qoraa oo nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu rufi'a al-qalam an thalathatin saddex nooc oo dadka kamida malaa'iktu dambi kama qorto oo qalamka waa laga kor yeelay waxaana kamida canis sabi hatta yaxtalima caruurka saqiirka ila mani ay ka timaado yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas daraadeed maadaama allah iyo rasuulkiisu cadeeyeen علماء المسلمين ضمان أفرت مذهبات يا قيركود waxay isku waafaqeen hadii caruurkii wiil iyo gabar midku doonaha ahaado mani ay timaado asagoo soo jeeda ama hurdaye oo mani uu yeesho waa qaangaar gabadhii hadii dhiigi caadadu ku dhaco waa qaangaar haday uur qaado waa qaangaar علماء المسلمين ضمان waa ku ijmaaceen bal waxa aqrida kitaabka tafsiirka ah imaam al-qurtubi aayada suuratu an-nisaa
wabtalu lyataama markuu sharxa ijmaaca madaahibta afarta iyo qayrkooda isku waafaqeen sidoo kaleeto aliqnaac fi masaa'il ijmaac bal fiiri maraatib ijmaac ibn alxasmi fiiri dhammaan way isla ogol yihiin waxaa jirta mas'alo ay fuqahadu isku khilaafeen masaladaas waxay tahay dadka inta ugu badan caruurta waxayba ku qaangaarayaan gabdhihiina dhiigga caadada inuu u yimaado amase waxa weeyaan manidii la helo wiilashii manidii in la helo taasay ku qaangaaraan in badan laakiin 15 hadduu soo gaaro caruurkii manina ma leh oo mani lama arag sidaas oo kaleeto gabadhii dhiiggii caadadu kuma dhicin uur ma qaadin gabadhaas iyo wiilkaas qaangaar miya xagga sanadka mase ma ahan waana dad yar dadka 15 inta gaara dhaafaya ayagoon gabadhiina caada ku dhicin dhiig iyo waxa weeyaan manina aysan jirin wiilkiina aan waxa weeyaan maniyu jirin waa dad fara ku tirisa ummadda badankoodu calaamadahan kaleeto quraankii sunnadu sheegeen ayay ku qaangaarayaan marka taas way isku khilaafeen imaam shaafici imaam axmed bin xambal awsaaci in badanoo maalikiyada ka mid ah waxay yidhahdeen 15 lagu qaangaara alimaam alqurdubi imaam maalik abu xaniifa wuxuu ka soo raray inay yidhahdeen 17 sana lagu qaangaara haddii la waayo calaamadihii kale wuxuu kaloo ka soo raray imaamu abi xaniifa inuu qabo 19 lagu qaangaara haddii calaamadihii kale la waayo waxa la isku khilaafsan yahay marka ma ahan maxaa lagu qaangaara ee waxay tahay calaamadihii quraankii sunnadu sheegeen culummaduna ku ijmaaceen haddii la waayo qofku xagga sanad ahaan goormaa la dhihi karaa marka waa qaangaar masalada la isku hayo waa inaad fahantaa ma ahan maxaa lagu qaangaara oo asala maaha asalka inta badan ummaddu tanay ku qaangaarayaan laakiin dadka isku caafimaadna maahan caruurtu isku koriinana maahan dadaa intaas inta soo gaaraan haddana calaamadihii kale aan la arkayn kuwaasu maxay ku qaangaarayaan marka weeye markay culummadu iskhilaaftana ma banaano qofku midku asagu jecel yahay inuu iska qaato ilaahi weyne subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuuli haddii shay culummadii aad isku khilaaftaan ilahi iyo rasuulkiisa u celiya oo kitaabkii sunnada u celiya qowlka daliilka ku xoog badan qaata ee kaad rabtaan qaata maahan ilaahay wuxuu yidhi wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى allah shay haddaad isku khilaaftaan xukunkiisa alla leh alla u celiya oo fiiriya qowlka daliilka ku xoog badan saas daraaddeeda aqwaashaas marka la fiiriyo qowlka 15 u daliil ku xoog badan ee madhabka imaam shaafici madhabka imaam axmed madhabka imaam awsaaci saas daraaddeeda a'imo badan oo a'immadii maalikiyada ka mida shiiqoodii waa ku khilaafeen oo kanay raaceen soo ma jeedin maxaa yeelay kana daliil ku xoog badan waxaana u daliila xadiiska bukhaari iyo muslim cabdullah ibn cumar ibn khadaab wuxuu yidhi nabigeena suban sallallahu alayhi wasallam maalintii uxud alla ii keenay dagaalka si aan u galo nabigu waa diiday 14 sanaana jiray maxay caruurta saqiirada dagaalka looma diro waa uu u diiday nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi maalintii ahzaab ayaa lay soo bandhigay wa ana ibnu 15 anoo 15 sano jir ah fa ajaasani gal u dagaalka waa qaan gaari marka nabiga kala saaray saas daradeeda khaliifkii raashidka ah Umar ibn Abdul Aziz wuxuu yiri waa farqiga meesha kala saarta weeye saqiir iyo qaangaar waxaan rabaa kelimadaas inaan ku soo qatimo mas'aladan waa mas'alo weyn oo usuushi islaamku ay ku xiran tahay qaangaarnimadu sidaas daradeeda dad aan aqoon u lahayn inay ka hadlaan uma banaana dambi ilaahay laga galo dambiga ugu weyn waa in diinta qof aan aqoon u lahayn ka hadlo إلهي وإنا وحده سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون هاتلهمينا وحانا حلال يا وحانا حرام إذن كنوا قون أولهين هذا تراهدان وإلهي يتكب بين أبورتين ضدك إلهي يتكب بين أبورتين من اللي بينان سيدة استرانت إذا حدين لي يردين إسلام كوحي قبطا سيدات يطبان سانو كيه لغمات كان جارو وافتراء على الله وإلهي يلغو بين أبورتي وتبديل إلهي دين كيسي لبدلي وإسلام كبح دين إسلام ماهن قف علماء هل علماء مذاهبتا كميدة أو يرسدين يطمان كور لما قاين قاري ما بتجربه مسألة أي رهدين وإنا تفهمتها على مداهن كالي حدين لهيلو عروركي واقاين قاري لكن ضدك أي دعي كرتو إني دعدا سوق قاران أيقون على مديه لغا هيلين حيكو قاين قاري ومسألة علماء وإسكوها أيام أيضا واناقا شاكنا سيدا اللو علاجيو إيا سيدا إلهينا أمري مركز وكالي haddaba taas maxay ku tusaydaa qatarta ay leedahay qofku wuxuusan aqoon u lahayn markuu ka hadlo waxa weeyaan dad masaa'il sharciya oo waaweyn oo arkaanta islaamku ku xiran tahay aqoon la'aan ka hadlaya tusaale haddaan soo dhaweeyo waxay la mid tahay 4 nin oo geeley ah weligeed alif beeta looma dhigin iska caafimaad ay barteena markaas inta meel fariisan yiraan dadka jireen hana loo keeno
waa loo keenay kan madaxii aad u xanuunaya qalliinay la fariisteen birtay saareen halbowlahaas go malaha midkaas halbowlahaas ayaa dhiig jiran ku jira kow naftiya ka dhacday markuu dhintay ay leeyihiin wax dhib weyn maahan waxa weyn qofkan hurdal aan ku dhacday malaha waa hurday xagga ii seex soo qabo midka kale war jeex balbeerka war xididkaas inta gooyda xididkan ku rakib malaha labada xidid isla shaqay weydii kow waa dhintay xagga seex dhib weyn ma maxaa la dhiila dadku hadday arkaan war ha laga qabto dadkan ummadda halaagayso lama dhiheen diinka qofka inta wax aan diinta sal iyo raad ku lahayn sheega dhahaya dhib male sidaas waa ka daran oo diinko la baaba'sho iyo dadka naftooda yaa qatarsan labadooda waa qatar laakiin diinta qatarsan soo maaha marka ilaahay in looga cabsado weeye sidaas daraadeed xaqiiqo waxaa maanta haddii la isku keeni lahaa 300 oo culummada Soomaaliya ugu aqoonta badan ee la dhihi lahaa waxa lagu qaan gaaro bal idinku mid noo doora ma dhici karto in hal mid oo kamid xataa uu dhihi lahaa war qowlkaan iska qaadana taas shaqadoodba maahan waxay dhihi laayeen waa xaq ilaahay wixii Allah iyo rasuul sheegeen culummadii muslimiintu ku ijmaaceen lama taabtaan weeye mas'alada kalena ka daliil ku xoog badan ay dhihi lahayn Soomaa maxaa yeelay waxa ay ka hadlayaan yaqaanin ilaahay aan uga cabsano waxa qofku ka hadlayo carabkiisa malaa'iga wax ka qorida rabbi ha looga cabsado wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad